soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaynu isla eegaynaa speakingka qaabka loo barto si fudud. Marka inta badan dadkeena Soomaaliyeed ee jooga waliba dalka jooga waxaynu carqalad kala kulannaa ama inta badan aynu dhib kala kulannaa ku hadalka luqadda Ingiriiska. waxaa laga yaabaa luqadda Ingiriiska inaad aad ugu fiican tahay, khaasatan marka aad wax qorayso ama aad wax akhriyayso ama aad wax dhegeysanayso. waa laga yaabaa qoraalkii iyo akhriskii iyo iyo dhegeysiga ama waa laga yaabaa inaad ku fiican tahay oo aad waliba ama grammatically inaad wanaagsan tahay. balse midda keliya ee aad u adag waxa weeye speakingka, qofku inuu ku hadlo. hadduu qof ku yimaado wax kuu diro waad soo qori kartaa, hadduu warqad kuu dhibo waad akhrin kartaa, hadduu kula hadlo laga yaabaa inaad fahanto. balse dhibaatada meesha taalla waxa weeye celin kari maysid, odhanba maysid, kelmadba kaa soo bixi mayso adigoo yaqaana thousands of words, kelmado badan adigoo yaqaana, vocabulary badan adigoo yaqaana, ereyo badan adigoo yaqaana, sentences badan adigoo yaqaana, kaaba soo bixi mayso. marka hadduu meesha taalla waxa weeyaan sidee loo xallin karaa? xalku muxuu yahay? xalka maanta halkan waxaan soo koobayaa ilaa 6 ilaa 5 qodob oo aynu ku xallin karto qaabkaas, oo aynu uga bixi karno dhibaatada naga haysata inta badan speakingka, ku hadalka. marka tallaabooyin baynu qaadaynaa, tallaabooyinkaaynu qaadaynaa inoo saamixi doona marka inaynu ka baxno. waa wax aniguna aan sameeyey, adiguna aad samayn karto, maadaama aynu dal joogno Soomaaliya dhexdeeda. anigu muddo ka maqnaa, balse dee dadka badanaa jooga dalka gudihiisa waxa keenaysa inay luqadda ku adkaato maadaama aanay luqadda kuba hadlaynin. marka qodobkani kood wuxuu noqonayaa practice speaking every day, inaad isku daydo inaad ku hadasho luqadda maalin walba. waxaa la consistency is the key to try speak English daily. inaad joogtaysaana waa furaha keliya aad ku baran karto speakingka. inaad maalin walba haba yaraatee inaad isku daydo, hataa waqti yarba ha noqoto. taas waxay kaa caawinaysaa markaa inaad hesho kalsooni iyo weliba inaad si fasaxa aad ku hadasho luqadda Ingiriiska adigoo muddo wadaya. maalin iyo labana ku noqon mayso, laakiin inaad muddo wado taasa markaa ku horseedaysa. midda labaad waxay noqonaysaa iyadna inaad yeelato sida daily call, inaad yeelato goolal ama yoolal maalinla ah oo ku hadalka luqadda Ingiriiska muddo cayiman oo samayso. xataa haba noqoto 10 daqiiqo haba noqotee, inaad u samayso maalmo iyo daqiiqado aad samayn karto speaking aad samayn karto. waxaad ka hadlaysaa mawduucyo gaara adigoo markaa weliba xoogga saaraya mawduucyada inta badan the most common topicska kuwa ugu badan la isticmaalo, sida caafimaadka, daily life communicationka, situationska sida deegaanka, cimilada iyo wixii kala halmaala. marka qofkaad kusaad u hadlaysa markaa waxa weeye ama qof baad kula hadli oo aad la practice garayn oo markaasna ku fahmaya, ama adiga kan samayn kara topic aad ka hadasho. labadaba waad samayn kartaa. qodobkan labaad wuxuu noqonayaa find a conversation partner, inaad hesho qof kula qaata oo kula sheekaysan, inaad hesho ood isku challenge garaysaan. marka ama qofkaas ha noqdo qof native ah oo aad heshay, marka ama qof kale oo Soomaali oo isku fahmaysa ha noqdo. marka si aad fasaxa ugu hadasho, marka waa inaad luqadda ka soo baxdo oo waqti la qaato qofkaad. waxaan ogahay inaan soo tijaabiyey 10 sano oo ku noolaa Soomaaliya, waxa ii suuragali weyday in luqadda Ingiriiska si fiican uga hadlo. balse 1 sano oo waddankan ka baxay waxay suuragelisay luqadda inaan si kalsooni looga hadlo. hatta waddankan tigamaha waddan lagaga hadlo luqadda Ingiriiska si caadi looga hadla ma ahayn, balse luqad kale haddana markaa aanan aqoonin qasab waxay noqotay inaan kula hadlo luqadda Ingiriiska. taas marka waxay saamaxday inaan practice gareeyo maalin walba oo dadkaan la kulmayo, goobahan tegayo, suuqan marayo, aan kula hadlo luqadii. tan macnaheedu sidaas la mid adigoo jooga waddankaaga hooyo waxaad keeni kartaa inaad kula hadasho dadka markaa ay suuragal tahay inaad kula hadasho. sidoo kale waxaad samaysan kartaa platformyo aad helayso markaa aad tagi karto ama aad ku biiri karto markaa iyaguna jiri kara. marka hataa haddii aanad heli karin qof kula hadla, isku day inaad naftaada la hadasho, la sheekaysto waqtiyada qaar, qolo gasho, aad mawduuc soo qaadato, aad ka hadasho.
kiina saddexaad wuxuu noqonayaa use language learning apps inaad isticmaasho applicationo badan baan soo dhigay channelkan oo maaragta aniguna aan isticmaalay dad badanna ay isticmaaleen waana daawan kartaa hoosna kusoo dhigi doonaa descriptionka marka waxaa kamid ah Duolingo kuwa aad kan u isticmaalo waxaa kamid ah Duolingo iyo mid kale yaqaan free for talk mid kale loo isticmaalo labadaasba mobilkayga ku jiraan waan isticmaalaa hore waan isticmaalay ilaa haddana kama xiiso kuyo waan iska isticmaalaa marka halka waxaa ku qoran kuwa kale sida Duolingo Babbel Rosetta Stone free for talk iyo waliba Bazoo waxa weeyana applicationo aad loo isticmaalo oo dunida caanka ah oo dadka luqadda baranaya ay isticmaalaan badanaa waana ugu caansan ee la doonayo speakinga qofku inuu kor ugu qaado iyo waliba pronunciationkiisa marka la soo deg qaar ka mid ah applicationadaas aan sheegay dibitana maalin walba isku day inaad maaragtay practice ku samayso qodobkana afraad wuxuu noqonayaa daawo watch movies and TV show in English waxaan daawanaysaa mar walba waxaan daawanaa TV aan daawanaa ama showyo ama YouTube aan ka daawanaa isku day mar walba inaad daawato waxyaabo TV-ga oo kala oo waliba subtitle leh oo aad ku fahmayso niimadu ma ahan inaad daawato laakiin waa inaad fahanto qofkan wuxuu ka hadlayo marka koobaad waxaad fahmaysaa muxuu filim ku saabsan yahay ama showgan muxuu ku saabsan yahay marka waa sentence soo koobay marka hore waa inaad hesho marka labaadna waa inaad haddana aad dhegaysato marka adigoo hadaad fahmayso waxa ku muhiim ah hal kelmad oo aad ka fahanto oo aad qorato oo macnaheeda fahanto wax walba ka muhiimsan marka taasina waa mid kale oo yadna aad marka aad ku practice karto marka ku celi kelmadaha ama sentenceida marka aad ka baratay meesha si ay ku noqdaan kuwa maalin walba isticmaasho qodobkana shanaad wuxuu noqonayaa record yourself speaking naftaada oo aad ka hadlayso ama adigu naftaada duub taasaa ku horseedaysa marka inaad luqadda practice badan samayso marka record yourself speaking adiga oo tijaabinaya naftaada inaad macnaha maxaa la yidhahdaa aad ku hadli karto marka waxaad soo qaadan kartaa topic gaara markaad xiisaynayso ama kuugu caansan ee caadiga ah dibadna waxaad samaynaysaa inaad ka hadasho mawduucaas iyadoo cidna ku dirsan naftaada la hadasho dibadna aad dhegaysato dibadna aad aragto feedback maxaa kaa qaldamay be attention bal to your pronunciation intonation and fluency inaad kuwa xooga saarto macnaha qaabka u dhawaaqaysa sax ma yahay intonationka codka kor u kaca iyo hoos u kaca sax ma tahay fluency-ga fasax ma tahay kelmaddu dadku ma ku fahmayaan marka taas waa mid kale ka mid ah way lix oo kiino dambeeya waxaad isku dayaysaa marka mimic the native speakers dadka luqadda Englishka leh ee native speakers isku day ama raac sida ugu hadlayaan isku day qof ka dhigo role model ka dhigo qof dibadna raac qaabka ugu hadlayo waliba qof aad leedahay waa dadka yani ugu fiican luqadda ee u dhashayso dadka Britishkaas oo kale inaad soo qaadato dibadna role model ka dhigato qaabka ugu dhawaaqayo inaad maaragtay isku daydo adigu inaad raacdo marka native speaker dooro dibadna meesha wax soo geliyo ama uu joogo mar walba ku xidhnow daawo styleka ugu hadlayo marka raac taas marka ku horseedaysa inaad marka luqadda aad keento marka try to imitate their tone rhythm and intonation waa muhiimadu waxa weeyaan qaabka ugu hadlayo luqadda inaad fahanto weeye oo adiguna hadhow isku daydo raacdo